fadhigii maanta golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeesheen waxa ku horyimay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ay kaga dhageysteen khudbad sanadeedka hore taasi oo kaga waramay safaradii dibadda ee xukuumadda talada hayse garwadeenka uu ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo safaradaasi waxyaabay uga qabsoomay isagoona gaashaanka ku daruuray toddobadii qodob ee laga soo saaray shirkii ka qabsoomay dalka Turkiga oo sheegay in toddobadii qodob mid kamid ah ay ka hortimid dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar amuurtaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxa uu isna qeexaya oo ka mamnuucaya labada geesoodba Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay iska ilaaliyaan hadaladan xanafta leh xumeyn kara niyad wanaaga iyo habsamo socodka wada hadalka labada dal iyo waxa la wixii kale action ah ama talaabo ah ama qaraar ah ee wax yeeli kara sidii wada hadalku u socday in labada geesoodba ay iska ilaaliyaan ayaan ku heshiin toddobada qodob ayaa ka soo baxay shirka Turkiga ee ugu dambeeyay labada geesood ay yeesheen waxaanu sida aan sheegay aanu balansanahay in muddo 9 cisho ah gudahood aanu ku heshiino aan ku wada hadalno oo isku nimaadno waxa kale oo ka hadlay Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland shirka ka qabsoomay doona magaalada Brussels ee dalka Belgium oo uu sheegay inuu yahay shir qaaran loogu ururin doono jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa isagu cadeeyay oo sheegay in ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland marleyba ku hawlan tahay sidii xiriirka iskaashiga caalamiga ee wadamada reer galbeedka iyo kuwa kale dalalka deriska ay u xoojin lahayd dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhaadhicin lahayd qadiyadda go'aansitaanka jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeedu ay go'aansadeen Maxamed